iyadoo caalamka muslimiinta oo dhan si weyn looga dabaaldegayo munaasabada Ciid al-Adha ayaa magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal oo kamida magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa munaasabada Ciid al-Adha si weyn looga dabaaldegay shacabka kala duwan ee ku nool magaalada Boorame caruur iyo cirolaba waxay salaadii Ciid ay ku soo tukadeen goobo kala duwan iyagu markaasi ku yaala afarta xaafadood ee ka kooban tahay magaalada Boorame mid jaamaca weyn ee magaalada Boorame halkaasi ku tukanayeen qayb kamida bulshada ayaa waxa goobtaasi goobjoog ka ahaa wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland madaxda heer gobol iyo heer degmo culamaa u diin iyadoo markay salaadii Ciid ay dhamaatay halkaasi shacabka uga hambaliyay munaasabada Ciid al-Adha iyagoona Ilaahay ka baryay sanadkan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo ku gaarsiiyo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah عطر الألسنة بذكره وشغل القلوب بحبه لا إله إلا هو الكبير المتعال أبيك أسبوع منا عايزنا تماما منه نقالنا وما نقول جلود كليه جلود وسط كليه وأكبر مطلوب طبعا تدور شكرهم أيها واحد من هالوتي الكرام يجي مجالنا الأول وروتين شركة قاعد كويسة أو شباب قاعد جريدة وقاعد جريدة أول فضل بقول روتين ويا لا من الآن مدة مسلمين بعض غير مستوى العالم مستوى واحد مهم بيجينا عيد وعيد ولا عيد كان عنده مدرسة ولا مسلمين كان عنده تدريب ولا حضرنا سيتي من أفريقيا يعني حاجة ولا لا تجيو وهم أنا من الآن محاولين يلعبوا موضوع كسر ولا عيد كويسة كنتي فرصة عندي هذا القبلة ومسؤولية الوضع اليوم سائل كرسية waxay tahay waa in weyn oo caalam islaami oo dhan ka dhaxaysa ilaah kale ee wadaniga ah ma aha munkar ilaah wadaniga la sameeyo shay abu can ma aha laakiin ma gaaraan qiimaha ay leeyihiin ciidda ay islaamka ay leeyihiin ma gaaraan waa wax madaxa lagu tasarrufaa oo toobad ciidda ay hanjisay sidoo kale telefishinka caalamiga Star oo mikrofoonka la dhex qaaday shacabka ku nool magaalada Boorame ayaa waxay hambaliyooyin iyo salaamo kala duwan ay u direen ehladooda iyo asxaabtooda ku kala nool dunida daafaheeda iyadoo wajiyada dadkan aad ka dheehanaysay farxad iyo damaashaad si kastaba arintu haatee wararka kala duwan ee telefishinka caalamiga Star ka soo gaaraya tuulooyinka degmooyinka hoos yimaada gobolka Awdal ayaa waxay sheegayeen si weyn looga dabaaldegay munaasabada Ciid al-Adha waa Maxamed Xasan Ismaan Shidbele telefishinka caalamiga Star magaalada Boorame